إنا لله وإنا راجعون. walaashay Faadimo Cismaan oo muddo 20 sano ku dhawaad ah aan jaarahayn oo runtii maanta inaan ka hadlo ay dareen aad iyo aad ugu xoogan u yahay geerideeda. Faadimo maanta ayaa loo ballansanaa inaan ka qayb galno meherkeeda Hotel Green Plaza. shalay uun bay ahayd markii ay ku soo booday xanuun degdeg ah gelikii dambe dhakhtarka international baa la geeyey dabeedna halkaas ay kooma ku gashay. dhakhaatiirtu waxay sheegeen in infaali ku soo booday. waxa la islahaa runtii aad iyo aad bay u soo fiicanaysaa farxadeedana ka qayb galaysaa. saaka markii markaa la islahaa hawshaas ha la dhameeyo oo la ballansanaa ilaa 9:00 meelahaas 8 subaxnimo dheeraad baa la soo sheegay geerideeda. aad iyo aad baan runtii uga naxay qof walaasha ah oo jaar ahaydeen oo maaragtay booska walaashay ii taagnayd oo iyadoo koraysa oo kaalin qaadisaan intaa arkayay runtii dareen gaar ah bay aniga Axmed Haan ii leedahay. dadweynahana waxa ku soo gaadhay social media ayaa lagu faafiyay. runtii waa dareen aad u naxdin badan. marka adiga waxaad ii sheegtay goor dhaweyd in iyadu kaarka meherkeeda gacanta kuugu dhiibtay saaka waa lagu soo boodayo. iyada shaqeysanaysay hawlaheeda wadatay hawshuna maaragtay si ku boodah shalay galikii dambe ayuunbaa aniga hooyaday ii sheegtay ugu tiri inantii Faadimo ayaa lagu soo booday. waxaa loo caray dhakhtarka marka arinka boodadu wuxuu ahaa shalay galikii dambe uu ahaa marka xaaladeeda ilaa xalay wala la tacaalayay. saaka subaxiina markii ay odayaashu go'aan ku gaadheen in haddii maxay heeday ay xanuunsanayso iyadu aan loo joojin maadaama dad badan maaragtay qarash ka soo baxay oo odageeda Mareykanka iminay hudhalkii la kireeyay tacab badan la galay. waxa la islahaa runtii way soo caafimaadaysaa way soo wanaagsananaysaa hawshan insha Allah la dhameeyo laakiin iyadoo la isku imanin baa geerida ka hortimid. aad baan uga naxay runtii geerida marka la soo sheegay anigu dhaxdan ku sii marayay waxaan ka qayb galay xafladda markii ay soo garaacday habeertay ugu tiri intii Faadimo waa dhimatay. runtii dareenkayga Ilaahay baa sheegi kara. bal haddii shakhsiyadii marxuumada aad sifayso maxaad ku sifayn lahayd? Allah u naxariiste. Faadimo waxaan ku sifayn lahaa Ilaahay u naxariiste in ahayd qof dhalinyar ah oo si fiican wax u baratay oo kaalin muhiim ah kaga jirtay qoyskooda maadaama xaafadeedu ugu weynayd. aniga walaashay bay ahayd inta ay koraysay maanta ilaa inay dhimato iyo inay mataqaana arooskeeda laga qayb galaba waan soo taagnaa waan arkayay runtii qof dhowrsoon oo gurigooda maaragtay ku dhowrsoon oo hablaha kale runtii ka cayimno maaragtay maxay aad dareemayso qaabka u dhaqmayso. runtii waxay ka soo jeedaa qoys ma taqaana culimo aabaheedu waa nin sheekha hooyadu qof goba oo aniga soo korisay. runtii aad iyo aad qof qiimo u leh oo u rajeynaya in Ilaahay jannooyinkeeda ku xasuumo ayay ahayd. laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay in ay isku beegmaan tacsideedii iyo farxadeedii. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. qoyskana aad baan uga tacsideynaya aad iyo aad bana ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaba ay uga naxeen. Allah yarxam. marka imika goorma ayaa la filayaa in la aaso halkee se la filayaa in lagu aaso ogaalkaaga? Axmedow hadduu baan halkan iska helay waxaan rajeynayaa in casarka laga tukado magaalada Hargeysa oo lagu aaso xabaalaha kamid ah xabaalaha maadaama aan wali xaafadii gaadhin warna ka haynin halka loo qoondeeyay ee lagu aasayo. waxaan rajeynayaa laakiin maadaama xabaalihii la qodo in xilli dambe ay qaadan doonto ilaa casarka